qisada muuqaalku waxay ku bilaabanaysaa magaca dilaaga xirfadlaha Marcos oo ah gacan ku dhiigle xirfadle ah oo dabagelaya bartilmaameedkiisa oo ah xubin ka tirsan maafiyada Shiinaha oo jooga baar. Marcos wuxuu raacayaa bartilmaameedka oo uu leynayaa ilaaladii ka hortimid isagoo ugu dambeyntii dilaya xubinka maafiyada. Wuxuu sawir ka qaadanayaa bartilmaameedka isagoo u diraya maamulihiisa Robert oo jooga saldhigiisa. Intii ay wada hadlayeen, Robert wuxuu Marcos u sheegay hawl kale maalinta xigta isagoo xooga saaraya dabeecadda aan naxariista lahayn ee shaqadooda. Marcos inkastoo ay tahay sanad guuradiisii si dirqi ah ayuu u ogolaaday isagoo qiraya xaqiiqda aan cafiska lahayn ee xirfadooda. Subaxda xigta Marcos wuxuu waqti fiican la qaadanayaa xaaskiisa Carla iyo gabadhooda Kimberly. wuxuu kaga yaabiyey Carla hadiyad gaar ah wuxuuna qorsheynayaa casho romantic ah sanad guuradooda. Fiidkii dambe oo ay isku diyaarinayaan bixitaankooda ayay iyagoon is-ogeyn soo mareen wadooyin kala duwan. Carla waxay heshay fariin daason oo ku hagaysa maqaayad ka duwan tii hore 10 habeenimo oo uu joogo Marcos balse aan ogeyn. Iyadoo aan midba midka kale ka warqabin hawshooda ayuu Marcos bedelay muuqaalkiisa wuxuuna u jahaystay isla maqaayadii halkaasoo uu bartilmaameedkiisu joogo. Inta uu bartilmaameedka ka raadinayo gudaha maqaayadda ayaa Carla soo raacday dariiqa qolka dambe ee maqaayadda. Wuxuu ogaaday in bartilmaameedkiisa uu ku howlan yahay ciyaarta turubka. Dhaqdhaqaaq degdeg ah oo halis ah ayuu ku baabi'inayaa ilaaladii oo wuxuu dilayaa dhammaan cadowga. Kadib israsaaseyn xoogan wuxuu ka war helay Carla oo albaabka gadaashiisa taagan oo dhaawaceedu culus yahay. Waxay u dhimanaysaa dhaawaceeda isagoo ay murugo ka badatay ayuu sanad kadib geerideeda la daala dhacaya oo uu awoodi waayay inuu sii socdo. Inta lagu jiro waqtigaas wuxuu helayaa warqad uu la socdo Flash isagoo xiiseynaya ayuu daawanayaa waxa ku jira oo wuxuu fariin ka helay Roman isagoo ku martiqaaday inuu ka qayb galo tartanka dilalka ee ugu weyn ee Bangkok. Isagoo weli la halgamaya dareenkiisa ayuu u dabaaldegayaa dhalashada gabadhiisa Kimberly isagoo isku dayaya inuu helo nasasho waqtiyada ay wada joogaan. Inkastoo uu markii hore diiday haddana wuxuu gelayaa baaritaanka dhimashada Carla oo uu la kulmayaa Roman kaasoo ku cadaadiyey inuu tartanka ku soo biiro. Roman wuxuu daaha ka qaaday in abaalmarintu tahay $1 milyan wuxuuna si sarbeeban ugu sheegay macluumaadka ku saabsan Yog dilaaga caanka ah ee lala xiriiriyo dhimashada Carla. Marcos wuxuu ogaaday in Yog uu yahay dilaaga ugu khatarta badan caalamka isagoo kaga takhalusi kara cadowga waqti gaaban gudihiisa. Dalabka Roman wuxuu noqonayaa mid soo jiidasho leh markuu xooga saaro faa'iidada dhaqaale iyo suurtagalnimada inuu ogaado xaqiiqda dhimashada xaaskiisa. Inkastoo uu ku adkaystay inuu noloshaas ka tegay haddana Roman ayaa xusuusiyey dhibaatadiisa dhaqaale isagoo ka faa'iideysanaya xiisaha lacagta abaalmarinta. Marcos intuu ka fikirayay go'aanka wixitaan ayaa joojiyey isaga. Kimberly ma fiicna. Dhakhtarku wuxuu ku sheegay wadne xanuun taasoo u baahan qaliin degdeg ah. Iyadoo ay ka go'an tahay inuu badbaadiyo gabadhiisa ayuu si qoys ah isugu dayayaa inuu lacag helo. Wuxuu wacay Roman si ugu sheego ka qayb qaadashadiisa tartanka halista ah. Kadib markuu la xiriiray saaxiibkiisii hore ee Robert, Marcos wuxuu ogaaday in Yog uu ku jiro tartanka. Inkastoo Robert uu welwel ka qabo, Marcos wuxuu ku nuuxnuuxsaday inuusan haysan wado kale uu ku dooran karo xanuunka Kimberly awgeed. Ma xiisaynayo inuu ogaado taariikhda Yog, laakiin wuxuu rabaa inuu fahmo xiriirka uu la leeyahay tartanka. Robert oo fahmay xaaladiisa cakiran ayaa u ballan qaaday inuu arrinta eegayo. Maalintii xigtay Marcos wuxuu yimid hodheel Hong Kong ku yaal halkaasoo Roman uu ku soo dhaweeyay. Gudaha qol ayuu kula kulmayaa kooxo kala duwan oo gacan ku dhiiglayaal ah oo uu ku jiro Andre oo jecel inuu kaligiis shaqeeyo iyo Carla oo Andre ay isku dhacsan yihiin. Xiisadu way sii kordhaysaa markuu Yog kaftan ku soo galo oo cabsi gelinaya qof kasta oo jooga. Yog wuxuu la hadlayaa gacan ku dhiiglayaasha isagoo u qiraya xirfadahooda dilaanimada iyo asalkooda. Marcos wuxuu su'aal ka keenay aqoonsigiisa isagoo cadeeyay inuusan noqon karin Yog gacanka ah. Si kastaba ha ahaatee, Yog wuxuu cadeynayaa xaqiiqadiisa wuxuuna ku dhawaaqayaa tartanka inuu yahay tijaabada cida isaga si guul leh u dili karta. Markuu isbaro ka qaybgale kasta, kooxda waxaa ku jira Marcos, nin hore oo ahaa military, Andre oo hore u ahaa gacan ku dhiigle argagixiso, Caasho oo hore uga shaqayn jirtay MI6 ayaa noqotay dilaa, Dyson sarkaal hore oo ciidanka badda ah, Rick dilaa madax bannaan oo xiriir la leh ISIS, Ren dilaaga maafiyada Japan iyo Herban oo ah shiishyahan. Yog ayaa shaaca ka qaaday in mid walba uu heli doono fursad uu si gaar ah ula kulmo isaga, taasoo sii kordhinaysa khatarta tartanka. Xiisadu waxay kacday markuu Herban uu go'aansaday inuu ka baxo, balse waxaa wejigiisa ka qarxiyey shiishyahan aan la arkayn. Yog oo ka carooday isku daygii uu ku bixi rabay ayaa ku dhawaaqay in qofna aanu baxsan doonin. Ka qaybgale kastana wuxuu wajihi doonaa caqabad adag oo uu mid u wajihi doono. Marxaladda ayaa loo dejiyey tartan halis ah oo dilaa ah oo dhex mara gacan ku dhiiglayaasha xirfadleyda ah. Intuu Roman u diyaarinayo
ka qaybgalayaasha khatarta soo socota ayuu ku dhawaaqay inay haystaan 1 saac ka hor intuusan bilaaban iska hor imaadkooda. xiisada hawada ayaa kor u kacaysa iyadoo qof walba uu u diyaar garoobayo caqabadaha soo socda. habeenkii dambe kooxdu waxay ku shiraysaa meel loogu talagalay cabitaanada. Roman wuxuu ku wargeliyey in York uu diyaariyey casho soo dhaweyn ah oo uu soo bandhigay muuqaal kale oo muujinaya aqoonta ku saabsan ka qaybgale kasta iyo soo dhaweyn u muuqata. wada sheekaysi kooban kadib York wuu baxay isagoo ka tegaya kooxda si ay ugu raaxaystaan cabitaankooda. inta lagu jiro wada sheekaysiga, Dyson wuxuu su'aal ka weydiiyey gacan ku dhiigle walba khibradda uu leeyahay iyo waayo aragnimadiisa. Caasha waxay daha ka qaaday aqoonteedii soo jireenka ahayd ee ay la lahayd Marcos. Andre wuxuu xusay xiriirka ay wadaagaan militariga. wadahadalku wuxuu noqonayaa mid hakad gala marka Marcos la soo waco oo uu u baxo banaanka si uu ula hadlo Kimberly. go'aan naxdin leh, Caasha waxay ka hortimid Marcos iyadoo u muujisay rabitaankeeda ah inay disho isaga say fursad fiican ugu hesho tartanka. isagoo iska ilaalinaya weerarka Caasha ayuu ka adkaaday isagoo ku canaantay inay iska aamusto. maalintii xigta Roman wuxuu soo ururinayaa qof walba isagoo ku dhawaaqaya in mid kasta uu heli doono fursad uu ku wajaho York shakhsi ahaan. wuxuu soo bandhigayaa hub badan isagoo u ogolaanaya ka qaybgalayaasha inay doortaan agabka ay doorbidayaan. markii kooxda loo qoondeeyey nambaro oo tilmaamaya sida ay u kala horeeyaan oo ay u wajihi doonaan York, ayaa nambarka Andre marka hore loo yeeray. intuu sii socdo kooxdu waxay ka daawanaysaa kaamaradaha ilaalada. marka uu soo galo qol xafiis oo ku yaala dhismaha, York ayaa si degdeg ah uga hor yimid isaga oo la galay dagaal degdeg ah oo naxariis daran. York wuxuu sii waday inuu rido rasaas badan oo uu qoorta ka gooyay Andre isagoo cabsi ku beeray gacan ku dhiiglayaasha soo haray. isagoo aqoonsaday halista ayuu Marcos wuxuu u digayaa kooxda uu York la samaynayo iska hor imaadyo shakhsiyeed si uu u xaqiijiyo dhimashadooda. Marcos wuxuu soo jeedinayaa xeelad midaysan isagoo ku boorinaya gacan ku dhiiglayaasha inay si wada jir ah u wajahaan York say u kordhiyaan fursadahooda badbaadada. kooxdu way ogolaatay habkan. York ayaa ka soo muuqday shaashada oo Marcos ayaa la doodaya isagoo la tacaalaya sheekada uu soo bandhigay. Marcos wuxuu cadeeyay inuu kaliya raadinayo ansixinta inuu yahay boqorka dilaaga, wuxuuna soo jeedinayaa inay isku mar la kulmaan isaga. Marcos wuxuu soo jeedinayaa in haddii uu guuleysto York uu sheegan karo horyaalka, laakiin haddii ay guuleystaan waa inuu York qirto guuldarada. York oo u muuqda mid aan niyad jabin ayaa ogaaday isticmaalka Marcos ee cilmi nafsiga rogan. York wuu aqbalay challenge-ga isagoo ogolaaday inuu wajaho 4 gacan ku dhiigle markiiba. iska hor imaadku wuxuu ku bilaabmayaa Rick oo la halgamaya Marcos isagoo isticmaalaya dhaqdhaqaaq la yiraahdo hula. si degdeg ah ayuu uga argutay isagoo Rick dhinac u tuuray. dhanka kale Caasha waxay walaac ka muujisay Dyson inuu kaligiis tago. intuu Dyson dhex marayo wiishka, nalka ayaa si lama filaan ah u dameeya, taasoo muujinaysa imaanshaha York. xiisadu way sii kordhaysaa markuu York ka hor yimaado Dyson oo bilaabay dagaal naxariis daro ah. inkastoo uu isku dayay Dyson, York wuxuu adeegsanayaa xeeladihiisa dhagarta ah isagoo daminaya nalalka una geysanaya dhaawacyo halis ah. ugu dambeyntiina ka adkaaday Dyson. dhimashada Dyson kadib, York wuxuu ku boorinayaa 4 gacan ku dhiigle ee soo haray inay isku geeyaan awoodooda. wiishka ayay isla gelayaan, laakiin midnimadooda ayaa khalkhal galaysa markuu bam ku soo dhaco, kaasoo sababaya qarax jihooyin kala duwan u kala firdhiya. inkastoo uu dhaawac fudud soo gaaray, Marcos wuxuu faray kuwa kale inay kula kulmaan dabaqa sare. Caasha oo ku xayirantay wiishka ayaa maareynaysa inay kor u socoto markay bilowday inay mar kale dhaqaaqdo. si isku xigta, Ren oo ku hubaysan katana ayaa la kulmay Marcos. way kala qaybsameen say Caasha u raadiyaan, laakiin York ayaa fursadda ka faa'iidaystay oo Caasha weerar gaadma ah ku qaaday. isagoo isku dayaya inuu ceejiyo ayuu dhayalsanayaa adkaysigeeda, wayna ka hortimid tallaabadii uu qaaday iyadoo u suurta gashay inay si degdeg ah uga baxsato. way ka argudanaysaa iyadoo ku kacday dhaqdhaqaaqa hula, laakiin dadaalkeeda ayaa ah mid aan waxba tarayn maadaama loo geystay dhaawacyo halis ah. isla mar ahaantaana Marcos wuxuu qol kula kulmay Geisha. dagaalka xooggan ee dhex maray ayaa ku socday xawaare cajiib ah, waxaana ka adkaaday Marcos oo Geisha ku dilay mindi. markuu sii waday raadinta, wuxuu ku soo baxay Caasha meydkeeda, wuxuuna wargeliyey Rick isagoon helin wax jawaab ah. dhinaca kale, Ren wuxuu ka hor imanayaa York. dagaalku aad buu u kulul yahay iyadoo York uu muujiyey xooggiisa isagoo tuuraya Ren. isagoo aan niyad jabin, Ren wuxuu ku weeraray katana oo si ku meel gaar ah hubka uga dhigay. York si caro leh ayuu uga argutay isagoo isku dayaya weerar xooggan, laakiin Ren oo leh dhaqdhaqaaq degdeg ah oo sax ah ayaa lugaha York ku goynaya katana. isagoo waqtiga qabsaday, Ren waa laga adkaaday isagoo qabtay oo si degdeg ah ugu dilay goobta. intuu Marcos socdo, Rick ayaa ku bilaabay weerar lama filaan ah isagoo doonaya inuu dilo. Rick ayaa gacanta sare helay isagoo garaacay oo dhaawacay Marcos. halganka dhexdiisa, Marcos waxaa dhiirigeliyey ficilka xusuusta gabadhiisa. isagoo u yeeraya xoog cusub ayuu Rick lugta kaga dhuftay oo ku tuuray marwaxad isagoo si hufan u dilay. markuu horay u sii socdo, Marcos wuxuu la kulmayaa York kaasoo ku eedeeyey khiyaano, wuxuuna muujiyey xiriirka Rick ee isaga.
Marcos wuxuu difaacay habkiisa isagoo sheegaya in dilaaga dhabta ahi uu ilaaliyo asxaabtiisa. Iska hor imaadka ayaa isku bedelay dagaal culus, waxaana labada dhinac ay isku ridayeen rasaas uu midba midka kale la waayay. York wuxuu maamulayaa agagaarka isagoo mugdi ka dhigaya. Dhacdadii xigtay, Marcos ayaa ka awood roonaaday York isagoo jebiyey rumuudkii nalalka. Isagoo doonaya inuu u dhameeyo, Marcos waxaa hakiyey imaatinka lama filaanka ah ee Roman ayaa soo dhexgalay isagoo ku dhawaaqaya Marcos inuu guuleystay. Markuu Marcos dib u gurtay, waxaa la guddoonsiiyey kaarka iyo calaamado kale oo lagu garto boqorka dilaaga, taasoo muujinaysa guushiisa uu ka gaaray tartanka dilaayada. Kadib tartan adag, York wuxuu daaha ka qaaday abaalmarinta Marcos, lacag badan oo xisaab bangi ku jirta. Si kastaba ha ahaatee, York wuxuu daaha ka qaaday inuu u baahan yahay caawinta Marcos si uu ula dagaalamo koox dilaa ah oo caalami ah oo mas'uulka ah xadgudubyo badan. Gacan ku dhiglayaashan ayaa dhibaato u geysta dadka aan waxba galabsan ee ku nool daafaha caalamka, waxaana uu weydiistay Marcos inuu gacan ka geysto sidii loo soo afjari lahaa xukunkooda argagixisada. Inkastoo soo jeedintu soo jiidasho leedahay, haddana Marcos wuxuu mudnaanta siinayaa la joogista gabadhiisa intuu ka qaybgeli lahaa howlgal kale oo halis ah. Si kastaba ha ahaatee, Roman wuxuu u sheegay Marcos in helikobtar ay ku sugayso banaanka. Ugu dambeyntii, Marcos waa aqbalay codsigii York oo u baxay hawsha. Dhowr bilood kadib, Marcos iyo Kimberly waxay waqti farxadeed ku qaadanayaan makhaayadda. Iyagoo ku faraxsan farxadooda ayuu muuqaal ku arkay telefoonkiisa. Muuqaalka ayaa muujinaya Robert oo toogtay Carla. Isagoo dhacdada ka xumaaday ayuu faray Kimberly inay dhinac u baxdo. York ayaa soo muuqday isagoo sharxaya in Robert uu jabsaday telefoonka Marcos si Carla ugu soo jiido khatar. Wuxuu daaha ka qaaday rabitaankiisa ah inuu baabi'iyo dilaaga caalamiga ah ee la safan Robert. Isagoo xiisaynaya oo uu ku sii kacay dareenka rabitaanka cadaaladda, Marcos wuxuu aqbalay soo jeedintiisa. Si kastaba ha ahaatee, Marcos wuxuu ku adkaysanayaa inuu diyaarinayo wanaagga inantiisa ka hor intaanu si buuxda u gudan hawsha. Waxay qaadanaysaa weji shaki leh intuu Marcos isu diyaarinayo inuu ka hortago xoogagga mugdiga ah ee isaga ka soo horjeeda, isagoo uu wado raadinta argoostiga iyo cadaaladda kuwa uu jecel yahay. Muuqaalka halkan ayuu ku egyaa. Fadlan taabo subscribe iyo like haddaad jeceshahay muuqaaladan oo kalena commentiga hoose noogu reeb. Kulanti dambe oo aad u xiiso badan. Mahadsanid.